wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa si rasmi ah u sheegaya inay jiraan in kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamo ka taabasan ciidanka ku sugan gobolka Hiiraan oo hogaaminayo gudoomiyahaasi gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ay warar culus ku qaadeen koox ka tirsan al-shabaab oo ku dhuumalaysanaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan iyo sidoo kale ciidamo fara badan oo taabasan ay halkaas warar culus ka geystay oo ay jiraan ciidamadu ay deegaano fara badan oo hor ay kala wareegeen kooxda al-shabaab isla markaana gacanta ay uga dhigaan. ciidamo ka tirsan ciidanka gobolka Hiiraan ku sugan oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa warbaahinta si rasmi ah ula hadlay waxayna sheegeen in deegaano hor loo fara badan ay ka qabsadeen al-shabaab isla markaana ay ka saareen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Muddooyinka waxaa dagaalo culus ka socday qaybo kamid ah gobolka Hiiraan isla markaana ay ciidamada halkaasi ay baba xoogan u geysanayeen kooxda al-shabaab. waxaana jirta in deegaano hor leh ay maanta si rasmi ah ciidamadu ay sheegeen isla markaana inay kala wareegeen kooxda al-shabaab. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan oo ciidamo fara badan oo taabasan isla markaana lagu arkay jiidaha hore gobolka Hiiraan ayaa sheegay isla markaana guulo weyn ka sheegtay in dagaalkii muddooyinka dib ka socday gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaano ka tirsan in halkaasi kala wareegeen kooxda al-shabaab isla markaana gacanta ay kaga dhigeen. ciidamada horkacaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa si rasmi ah wafka ugu dhuftay inay jiraan in deegaano kale ku dhuumalaysanayaan kooxda al-shabaab isla markaana ay si rasmi ah xilligan uga saari doonaan. warbaahinta qaybaheeda kala duwan ayaa lagu arkay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan iyo ciidamo fara badan horkacayo oo isla markaana halka jiidaha hore dagaal ku jira si halkaas deegaanada ay al-shabaab u soo weerartay isla markaana rabaan inay qabsadaan isla markaana gacanta ay uga dhigaan ciidamo fara badan oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan. wararka rasmiga naga soo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in deegaano hor leh oo al-shabaab hore uga qabsatay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligan gacanta ay uga dhigaan ciidanka ku sugan gobolka Hiiraan. waxaana ciidamadu ay sheegeen inay xilligan guulo weyn ka sheeganayaan dagaal ku dhexmaray gobolka Hiiraan inta ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan. wararka hordhaca naga soo gaaraya isla maantana waxay si rasmi ah u tibaaxayaan inay jiraan weeraro culus ay al-shabaab iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan gudoomiyaha gobolka Hiiraan hogaaminaya halkaasi uu ku dhexmaray dagaal aad u qaraar ah. ciidamada warbaahinta qaybkeeda kala duwan la hadlaya si rasmi ah waxay u sheegeen inay guulaha ka gaareen kooxda isla markaana ay ku soo weerareen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana ay gacanta kaga dhigaan hub fara badan iyo sidoo kale saanad fara badan oo muddooyinka dambe dagaalo xoog ku dhexmarayay qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan gudoomiyaha oo si rasmi ah ugu dhuftay inay guulaha ay soo gaareen ciidanka isla markaana uga mahadceliyay ciidamada heeganka ugu jira in ammaanka ay sugaan shacabka iyo sidoo kale deegaanada ku tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanadaasi. waxaana gudoomiyuhu uu sheegay isla markaana ciidamaduba inay sii wadi doonaan dagaalka lagu jiro kooxda al-shabaab isla markaana ay ka saari doonaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. waxaana gudoomiyaha geeska kale warbaahinta la hadlay uu sheegay inay xilligan wada ku jiraan haraabigooda isla markaana ay ka qabsan doonaan deegaano hor leh oo hore gacanta uga dhigan. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay Cali Jeyti Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan inay wali sii wadi doonaan ciidamada howlgalka ballaaran ee laga fududinayo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana lagu baacsanayo cadowga argagixisada al-shabaab si halkaasi deegaanadaas oo dhibaato xooggan shacabka ay ku hayaan si looga saaro. insha Allah wararkan dambe ayaa ku doonta wararka soo kordha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.